saaxiibku waxa uu saameyn aan la dhayalsan karin ku leeyahay noloshaada waxaana uu noqonayaa laba mid wanaagsan oo jidka xaqa ah kugu hagaya ee jannada ama taa cagsigeeda mid jidka naarta ee halaaga ku horseedaya nabiga calaysay salaam isagoo inoo tusaaleynaya xadiiskan macnihiisu yahay tusaalaha la fadhiisiga saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xumi waxa ay ka kala dhigan yihiin sida mid cadar miskiya iibinaya ama mid qiiq agtiisa ka baxayo bir dhalaalinaya qofka cadarka iibiya uu ka dhigan yahay saddex midun inaad ka faa'iideed ama inuu ku hadiyeeyo ku siiyo ama inaad ka iibsato carafta udgoon ama in caraf udgooni halka ka soo raacdo taa cagsigeeda kan lagu tusaareeyay saaxiibka xun ee ka dhigan ninka birta dhalaalinaya ee meesha dabka qiiqu ka baxayo waxa kaliya ee aad ka faa'iideysaa waxay tahay ama in maradaadu kaaga gubato ama urxun halka aad ka soo qaado nabiga calaysay salaam xadiis kale waxa uu ku leeyahay almar'u ala diini khaliilihi falyanzur ahadukum man yukhalil qofku waxa uu la diin yahay saaxiibkiisa ama cidda uu u dhow yahay markasta midkiin ha iska eego cid la saaxiibayo rabbi subhanahu wa ta'ala waxa uu quraanka uu kaga sheekeynaya mid kamid ah xaalka ehlunaarka oo qoomaynaya sababtu uu qeymaynayana waxa ay tahay inuu adduunkii ku samaystay saaxiib xun oo jidka xaqa ah ka leexiyay ilaahay waxa uu leeyahay aayadan tafsiirkeedu yahay maalinta waxa weeyaan gacantiisa uu qaniinaya midka daalimka ahi oo uu oranayo alla shalaytadayday maxaa rasuulka jid uga dhigan waaye ugu dayan waaye alla shalaytadayday maxaan waxa weeyaan hebel saaxiib uga dhigtay ilaahay xuskiisa ayuu iga hor istaagay oo iga leexiyay sidaa darteed waxa ay tilmaamaysaa aayadda iyada ahi sida loo qoomamayn doono oo dadka qaybtood ay ugu qoomaynayaan saaxiibkii xumaa ee jidka xaqa ah ka leexiyay aayadan quraanka ay suuratul kahf ku jirta rabbi subhanahu wa ta'ala waxa uu la dardaarmaya rasuulka naxariis nabadgeliyo korkiisa ahaatee waxaana uu leeyahay ku sabir nabi maxamedow oo naftaada ku sabirsi kuwa rabbigood baryaya gelin hore iyo gelin dambe oo ilaahay wajigiisa oo kaliya doonay axaadiista iyo aayaadkaasi dhammaantood waxay tilmaamayaan saaxiibka wanaagsan saameynta uu noloshaada ku leeyahay iyo saameynta xun ee saaxiibka xun noloshaada ku yeelan karo haddaba cidda aad la saaxiibisid ee aad waqtiga la qaadatid ee aad ka agdhowdahay markasta ka digtoono oo iska hubi oo iska fiiri haddaba ugu dambeyn waxaad soo meeshan garaysaa saaxiibka ugu wanaagsan ee kugu dhow noloshaada aad baa u mahadsan tahay muuqaalkan sii faafi si walaalo fara badan uga faa'iideysaan ogeysiis waxaa loogu bishaaraynayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta in markaska diiniga Liibaan online teaching uu diiwaan gelin doono arday cusub haddaba haddii aad rabtiin inaad baratid higaada quraanka iyo tajwiidkiisa tafsiirka axkaamta tani waa fursadaadii haddaba waxaa nagala soo xiriirtaa +252 9 eber 5 4 4 4